ومدى هوشة إيا شقدك دقتين نميمكي اسكو دردركو إلهي كعبصلا رسولك وحير صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أحد نمامك اسكو درك بدن جنة إلهي مقرى وفك نميمك أحودتك اسكو درا oo inta hadalka qaada xagga hadalka la geeya qofka noocaasa jannada alla waa ka xaraam qofkii namiimnimada ku socda oo tawbakeen caawa wixii ka bilowda ilaahay ka bari xumaanta aad samaysay in wanaag lagugu bedelo cidii aad isku dartay heshiisiintooda iyo wanaagooda ku dadaal ilaahay ka bari in dembiga iyo wixii aad gashay uu kaa saamaxo maanta wixii ka dambeeyana namiimnimada iyo isku dirdirka jooji waayo jannada ilaahay waa laga xaaraantinimeeyey axadka dadka markaa isku dirka waxaa laga helaa cadaabka qabriga qofka ummadda isku dira oo isku keena oo mashaakil iyo fasaad ka abuura inta aan qiyaamaha la gaarin ayuu ilaah ugu talagalay cadaab in lagu cadaabo qabriga gudihiisa rasuulku wuxuu soo maray ayaa la yidhi laba qabri wuxuu yidhi labadan qabri yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna loo cadaabi maayo waa sida ayaga ay sheegteen rasuulku markuu sidaa yidhi wuxuu dhahay iska daa inaysan weyneyn waa shay cadiim ah oo aad iyo aad markaa u weyn amaa axaduhumaa labadooda mid ka mida waa labadii qabri ee nebiga dhex maraayay ee uu sheegay labadooda in la cadaabaya labadan mid ka mida ayuu yidhi nebiga wuxuu ahaa mid aan kaadidiisa iska asturin midaan iska nadiifinin oo istanjara aan wanaajinin aan iska hubsanin kaadida inay ka go'day iyo in kale ninka noocaasa ayuu ahaa kaadida oo aan layska hubsan oon layska nadiifininna waxaa laga helaa cadaabka qabriga cadaabkiisa ayaa laga dheefaa sidaa darteed ayuu yidhi nebiga labadan mid ka mid ah sidaa ayuu ahaa wuxuu ahaa midaan kaadida iska nadahin midaan iska nadiifinin oon iska asturin midaan iska hubsanin midka labaadna wuxuu ahaa mid ku dhex socda ummadda inuu markaa isku diro ummadda ayuu isku dirayay ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ayay u bateen maanta dadka ummadda isku dira aad iyo aad ayay dadka maanta ugu bateen xaaladda noocaasa waa xaalad aad iyo aad u xun shaqo ilaah subxaanahu wa tacaala xaaraantinimeeyey ayay noqotay war dadka iimaanka leh ee rabbigood rumeeyey ow ka fogaada namiimnimada iyo isku dirdirka ka taga rasuulku wuxuu yidhi cabdaha waxa la yidhaahda ma idinkaga waramaa ma idin sheegaa saxaabaduha ayay yidhaahdeen nebigu wuxuu yidhi waa namiimnimada waana hadalka oo baynannaasi la kala qaado ayadoo loola jeeda in dadka markaa lagu fasaadiyo inaad ciddaan u tagtood hadal ka soo qaado ama qof aad u tagtood hadal ka soo qaado qof kale aad u geyso adigoo ujeedadaada iyo danta aad leedahay ay tahay inay dadku isdagaalaan inay dadku markaa dhibaato kale iyo arrimooyin kale ka dhex dhaco xaaladda noocaasa aad ha looga digtoonaado war carabka iyo afka ha la ilaaliyo qof walba oo carabkiisa ilaaliya oo ka ilaaliya isku dirka waxyaabaha alla diiday subxaanahu wa tacaala iyo arrimooyinka xunxunkaa wanaag ayuu gaaraa rasuulku wuxuu yidhi yaa ii damaanaya oo ballan iiga qaadaya inuu ilaalinayo labadiisa lafgardaan waxa u dhaxeeya waa carabka iyo labadiisa lugood waxa u dhaxeeya waa farjigee oon janno u ballan qaadaa ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam war yaa dhihi kara aniga oo ballanqaadka nebiga aaminaaya war yaa ku soconaya waxyaabaha nebiga diiday oo raacaya oo ka haraya arrintaa si ballanqaadka nebiga uu u helo yaa ii damaanaya ayuu yidhi nebiga war yaa ii ballanqaadayoon janno u ballanqaadaa war yaa raba inuu janno helo oo ballanqaadkaa la siiyo yaa ii ballanqaadaya inuu jannada helo waa inuu sameeyo laba arrimood arrinta koowaad ha ilaaliya labadiisa lafgardaan waxa u dhaxeeya waa carabka waayo carabka dadka ayaa laysaga diraa beenta ayaa laga sheegaa diinta ayaa laga caayaa shirkiga iyo waxyaabaha kale ayaa laga sheegaa yaa ilaalinaya oo xumaanta ka ilaalinaya war yaa wanaagga u samaynayo u horseedaaya yaa diinta alla ku difaacayo qur'aanka ku aqrinaya carabkiisa yaa khayrka ku sheegayo ku tasbiixsanaya yaa khayrka iyo wanaagga markasta ku sheegaya carabkiisa oon janno u ballan qaadaa
ilaan waxyaabo badan oo wanaag lagu gaara ayuu carabku kasbaa ama markaa uu sameeya. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, laba kelimadood ayaa jira. labadaa kelimad waa laba kelimadood oo khafiif ah, oo waxay ku khafiif yihiin ama ay ku fudud yihiin carabka. waxay cusleeyaan miisaanka qiyaamo. waxaa loogu jacayl badan yahay raxmaanka agtiisa subxaanahu wa tacaala. laba kelimadood oo carabka ku khafiif oo maantoo dhan aad dhihi karto aadan ka daalaynin ayaa jira. maalinta qiyaamo marka la tago oo laismiisaamaya miisaanka cusleeya miisaanka qiyaamaha waaye. allah raxmaanka aad iyo aad uu u jecel yahay subxaana allahi wabixamdihi, subxaana allahi wabixamdihi. sida ayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. labadaa kelimadood maantoo dhan waad dhihi kartaa. intaad wax isku diraysa labadaa kelimadood dheh. intaad wax xamanaysa labadaa kelimadood dheh. inta aad dadka caynaysa labadaa kelimadood dheh. inta aad ilaahay diintiisa ka durugsanaysa ama aad ka fogaan lahayd kelimadooyinkaa dheh. carabkaa ku khafiif ahee. carabka way u sahlan yihiin oo ka daali maayo kana noogi maayaan. xabiibka iyo allah raxmaanka agtiisa ayaa loogu jecel badan yahay. miisaanka qiyaamo ayay kuu cuslaynayaan. maca daalika isku dirka hala joojiyo. aad iyo aad ayaan ugu badannahay maanta xaaladaa inaan samayno, haba ugu sii badnaadaana dumarkee. mar walba waxay ku dadaalaan sidii dhibaato iyo shaxna ay ku dhici lahayd, sidii colaad ummadda dhexdooda looga abuuri lahaa, qoys wanaagsan oo dhisan sidii laysugu diri lahaa, qoys dhaqmaya oo hagaagsan sidii dhibaato iyo shar looga dhex abuuri lahaa. waa waxa ay hawsha ka dhigteen dumarka maanta jooga.